boqolaal ka mid a bulshada ku nool degmada Salaxle ayaa goob fagaaraa isugu soo baxay tukashada salaada munaasabada barakaysan ee Ciid al-Fitriga waxaana farxadda Ciida shacabka ku nool degmada Salaxle qaybahooda kala duwan kala qayb qaatay maamulka dowladda hoose ee degmada Salaxle iyo sidoo kale xubnaha golaha deegaanka maayarka degmada Salaxle Axmed Buraale ayaa halkaasi dhambaal hambalya waxa uu uga diray guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan waxa uu tahniyadeeyay munaasabada Ciid al-Fitriga bulshada ku nool degmada Salaxle isagoo fariin gaar ah u diray bulshada ilaahay baan mahadle ugu horeyn waxaan hambalyo u dirayaa runtii shacbi weynaha ku dhaqan runtii dunida muslimka gaar ahaan shacbi weynaha jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaanna shacbi weynaha ku dhaqan degmada Salaxle munaasabada Ciid al-Fitriga awgeed waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo acmaasha saalix ahayd ee runtii soo gudanay bishii barakaysnayd ee Ramadaan waxaan ilaahay uga baryaynaa inta xanuunsan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaado inta ciidiga dareemaysa dhibaatooyinka runtii haystaana in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fiido waxaa kaloo aan runtii aan soo jeedinayaa in nimcada ilaahayna siiyey roobabka guga si fiican u daay runtii dhulku waa barwaaqo in ilaahay runtii loogu xamdiyo nimcada kelmadda kale ku daraya waxa weeye saaka aan fariinteeda diraynaa in dhammaan dadweynaha degmada Salaxle ku dhaqan runtii ay ka faa'iideystaan roobabka guga oo wax soo saarkii dhanka beeraha runtii laga faa'iideeyo maadaama xilligii guga lagu jiro xoolihiina ay saameeyeen abaarihii runtii soo noqnoqday kelmaddan fariinteeda diraynaa waa taas ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu noo siyaadiyo nimcadaas iyo amniga ciideedana inuu gaadhsiiyo horumar barwaaqo iyo caafimaad qab insha allah dhammaan dunida islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Somaliland iyo bulshooyinka reer Salaxleyba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaanan duco u raacinayaa in ilaahay nimcada uu siiyay kuwii ka faa'iideysta in ilaahay naga dhigo camaladii aynu soo qabanay ee wanaagsanaa ilaahay hay naga aqbalo waxaan leeyahay ummadda islaamka camal wanaagsan baynu soo qabanay waynu soo soonnay ciidii buu ilaahay caafimaad qab nagu soo gaarsiiyey qof kasta oo qof wax ka tirsanaya waxa looga baahan yahay maadaama aynu islaam nahay in la is saamaxo ummadda waxaan leeyahay qof walba qofka kale saamax ilaahayna barwaaqadiisa hay noogu wado alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan joognaa gu nimcadina way inoo daday laga faa'iideysto waana inoo harsayay guuga badankiisina way inoo harsayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin xilli wanaagsan oo ilaahay laga guddoonto ayuu inoo daayay